ورمانتا قرحت سو ميدك دغالا بي كرا ورميدك مانتا اود كاباسيتيغا هاد ku dagaalanta midka maanta leh war habarta ala ciidii ku dhow wallahi billahi tiro ku ay ku digareeyay ee la dagaal gala ee la waxa nabad dabka nala suuray garxashada dabka nala suuro habarta ala shalay maali guul bay wahay iyo ma kala jecla waxa leeyihiin waa lagu dugtaa ruux haduu ku danaan jiray baldayaay oo kuwa nimankii yusra harti way iyagu leeyihiin nimankii yusra harti ama garxash harti waa kuwa si dabeeshaday meel dhageysta beerkii geelaaga ilmo yar oo qalasiyaaba saas soo dhacayniyo suul gariyo ku qabanaya adna halka ka faataa baqranaysa hadii na laayo de no soo gurmada inaan ku soo gurmaneyn ba wallahi waarkii ku habash guro way waa kulay ciidamada SSB baxay SSB baxay garxash garawaanay xawada ku shubaan hodho dhahan daadar gaclay day to day marba maalin way maalinteedii way adiguna maalintaada soo martay qolii hawara wal xilay ma taqaana waxaanu soo direynaa walaalayaalo waxaanu soo direynaa raashinka briiska saliida laga waay maayo bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhageystayaal soo dhawaada meel kasta joogtaan waxaan rabaa inaan idinka warbixiyo xaaladihii ugu dambeeyay ee magaalada Corigaabo dagaalkii shalay dhacay iyo xaalku halka uu ku dambeeyay dabcan ninka lagu dilay Corigaabo maanta ee ganacsadaha iyo nabadda ay ku dhawaaqeen waxgaradka iyo ismada beesha garxajis qodobka waxaan ka oran doonaa iyo xaalku waxa uu ku dambeyn doono insha Allah muuqaalkan si shargalay meel dheer gaarsiin ugu horeen waxaan rabaa inaan xaqiijiyo shalay galab ayaa fooda la istaraysiida la socoteen dagaal weyn baa dhacay dhimashada xaggooda waa 8-9 labadaas la isku hayaan laakiin way qarinayaan laakiin already hadda waxay qireen in ay dagaalkii dambe shalay tii aarka ma aha tii waxa weeye Sheekh Salman loogu aaray saddexdii loogu aaray ma aha dagaalkii dambe iyagu shan bay sheegeen laakiin waxaa loo xaqiijiyay oo iyaguba ay xaqiijinayaan in ay tiradu ay inta ka badan tahay oo ay 6 nin ay ku dhinteen dagaalkaasi iyo saddexdii hore ee loogu aaray Salman halkaasi waa 9 kan shalay idin sheegay dabcan magacyada ayay baahiyeen dabcan daawadayaal xubnaha geeriyooday waxaan rabaa inaan sidoo kale xuso ragga dagaalka ku dhintay waxa ku jira nin xildhibaan oo golaha deegaanka ee degmada Corigaabo ku jira way qarinayaan inuu xildhibaan yahay laakiin iyaga dhexdooda ayaa shalay xaqiijiyay niman habar jeclaa iyo niman garxagso shalay miig soo haysta ayaa cadeeyay ninkaasi inuu yahay nin xildhibaan ninkaas waxa la yiraahdaa Caydiid Faarax Xaaji waa xildhibaan golaha deegaan ragga ku dhintay dagaalka ayuu ku jiray waana xildhibaan dabcan waxa kaloo geeriyooday xaggooda ka dhintay Hayba Jaamac Ismaaciil Tuke Xasan Jaamac Ismaaciil Dafac geele cigad Daawan iyo Shira Qiiq waxa kaloo noo sheegay in ay tiradan ay ku jirto sidoo kale nin lagu magacaabo Maxamed Cabdiwali iyo nin lagu magacaabo Kaysa Weyne intaas ku dhimatay dagaalkii iyo saddexdii ka horeysay dagaalkaasi ayaa khasaaruhu ay jiraan maanta marka waxay magaalada Corigaabo dil gaadmaha ay ku dileen nin ganacsada oo dhul bahanta oo markaasi Corigaabo ku sugnaa xilli hore ay ahayd oo goobtiisa ganacsiga oo ku sugnaa ayay dablay waxa huwaysan weerareen waa ayna dileen halkaas ninkaas waa uu geeriyooday waxa magaciisa lagu magacaabaa Umar Sanjacoor baa la yiraahdaa waa nin dhul bahanta oo reer Aysa Qaatuma dabcan haddaba arinta nabadda oo iman doona ay ku dhawaaqeen beelaha garxajis waxaan rabaa inaan arabaabo dilkaas dambe waa ognahay Sheekh Salman dilkiisi waxa uu shalay aaday in 9 ay u geeriyooto 9 in la istul saaro dilka maanta Umarna waa ka jawaabaynaa waliba si weyn baan uga jawaabaynaa si toosa ma qarsanano lama dhuumanayno waa ka jawaabaynaa taas waa qodob arinta nabadda ay ku dhawaaqeen waxgaradka ismada beesha garxajis ama gudida beesha garxajis waxay sheegeen inay nabad ku baaqeen nabad bila shuruuda nabaddu horta cid gooniya oo ay la dhalatay absolutely ma jirto nabaddu waa tii aanu sanadka ku joognay waa tii aanu sanadka ilaalinay waa tii aad intaadna soo wacdeen garxajisku ay markay reer SSON ay dhaheen muusaanu ishayn ilmaadareelo dhabarka naga tooganina ilmaadareelo dagaal baan ku jirna ninka habar awal baan dagaal kula jirna iyo xulafadiisa habar jeclo warnimayaho Ilaahay baan ku dhaarshay dhul bahanta dagaal lagu soo qaadina iyo reer SSC Qaatumo arintaasi waa la qaatay
وحوي عد قلوبتي أما دباتيسي أما الله يسي مجرد حتى وحي أنو وحوي هدي على كوري وحوي دورني إلالني وأنا لو ما كان يساق ويا يسحي يسكن مشكورين إذا ما قاطه تعيد على صوت معري إلى صوت أحمر جرحس بالنقطة وأنا ديلك بريركا السلمان لجوا رأي كبلاوات عرقابنا وحي نبدي أدي ديلكاسي كبلاوات عرقابه السلمان آدن عبد المدوبي وأنا تي عرقابه اللي وكل جور الهوي ورنبدنا الليني وبلا شروط eragaasi micnihiisu waxa weeye magaalada daanteedana anaa maamulan daantaada anaa ku maamulan anaa ku dowladeynay war nabadaasi nabad xirmaysa ama cerigaabo ka hirgelaysa ma aha walaalayaal waxaan leeyahay intaad aaminsantihiin cerigaabo in maamulka khawaarijta ee jabhadda argagixisada islam inuu xaafadda hartiga uu maamulo nabadu inta cirkeedii jirtay ay idin jirtaa markii hore wixii aan dhowranay ee ahaa inaanu gacanta kusoo dhigno dambiilayaashii dagaalkii laas aanu qaybta ka ahaa ee ciidamada militarigu ay SSC khaatumo ay ku raad joogeen ee aanu idinku ilaalinaynay aan lahayn war nimankaasi muddo 30 sano waxa way dhibaato haysatay war nimankaasi bal hadii la kuuran yahay waa idii soo waxa way eersadeen oo waa idii soo erga tageen oo waa idila soo hadleen oo si raganimo leh ay idila hadleen nimanka garxis war nimanka xaasha wuxuu maanta dhabarka ka toogeen oo muuse weerar ku qaadin nimankaas iyaga arrimahooda iyo conflictigooda iyo waxa dhexdooda ku jira banaanka ka ahaado walaalaha oo idinkaaba muuse ka soo horeeyba marka inaanu idin basrino inaanu hadii la kuuray aynu kala baxno waa sharci waa waajib weeye nabada cerigaabo anagu waa jecel waliba isbishar Abbas Madinahan sababtoo in dhibaato dhacdo ma jecleen laakiin cidda dhibaatada wada cidda duulaanka ah cidda muuse soo isticmaalay soo dhinac maray war waa idinka weeye marna nabad baanu doonaynaa oo dhul bahanta garaadada ismada madaxda khaatumo taleefankaad ku wictaan ku weeraraysan hal doorkeeyay dadka ilidka noocan cerigaabo hartana hadii la kureeyo sir adigu leeysan war waxaas labadaas laba isgalaya ma aha arinta ay ka hadleen reer baadiya leeysan war 4 bilood meedan anagoo dagaal ku jirno oo hadii la kureeyahay dagaal ka soo baxnay oo cududeeda iyo awoodeeda loo yahay oo isaaq aanu kala xaajo qaan oo aanu kala caraf qaaday markaad reer baadiyaha leeysan atow iyo calaacal nalaga maqal xaasha wajid waana amsan waana arsana simple waxa atowdan waxa calaalkan war maanta garxajso midka dagaalabi kara war midka maanta awood iyo capacity-ga hadii ku dagaalanta midka maanta leh war habar jecel ciidii ku dhow wallahi billahi tiro kuwa idin ku digalayay ee la dagaal gala ee la waxa nabad dabka nala suuray garxajso dabka nala suuro ee idin ku diganay idin ku faraxsan codkan dhageysta ilmaada ilaahay baa ku dhashay bal fiiri TikTok meel walba Facebook habar jecel shalay maalin guul bay weyn iyo ma kala jecel waxa leeyihiin waa lagu dugtaa ruux haduu ku danaan jiray baldayaay waa kuwa nimankii Yusra Harti waxay iyagu leeyihiin nimankii Yusra Harti ama garxajis Harti waa kuwa si dabeeshaday meel dhageysta beerkii geelaaga ilmo yar qalasiyaaba saas soo dhacayniyo suul gariyo ku qalabaya adna halka ka faataa baqlanaysa hadii na laayo de no soo gurmada inaana ku soo gurmanayn ba wallahi ma bihina caraare oo jifi yar hooso naalaya Axmed sagaal jeer ka degtay ka yihiidiya araga iska celiya xildhibaan baa laga dilay caaqil baa laga dilay wariya ina ay did xildhibaan golaha deegaanka degmada Ceergaabuha oo wallahi billahi wa tallahi wana dhint wariyaha garxajso waxay faankani faraqdan war maanta nabada aniga maanta soo nin reer arteemay soo nin dhul bahantaamay soo nin reer asqaatoomay Soomaalidu waxay tiraahdaa nin qoyan biyo kama dhowro aniga dagaalka bay ugu badisaaba dagaalka waa halkii waa abwaanka dhuuxlaadaan daasiga buuqa way noogu darartaa way uga dartaa reerkayga daan nabadeed ama caldhuux walaha war anaga nin qoyan biyo kama dhowro dagaalka baa anaga xalkayga ku jira sababta waxa way magaalooyinkayga ee deegaankayga iyo dhulkayga ayaan gacanta ku dhiganaa oo aan ku kala calaf qaadana war maanta idinka dantu nabadeedu ku jirto oo sababta maxay tahay war kursi baad soo doorsan raadinaysan second citizenship baad ka tiin SNM wariyaara hadeen kursi baad raadinaysan muuse fursad la raadinayna waa helay six bay u dhacdo oo muxuu doonay inuu Ceerigaabo iyo Carra Sool iyo Sanaag iyo Cayn u dagaal ka abuuro tiina waa rumowd already absolutely wala qaadan muuse wala qaadan midna way idin sheegayaan
maanta muuse inaanu doorasho qaban anay gacanteeda ku jirtaa wallahi anay gacanteeda ku jirtaa oo billahi anay gacanteeda ku jirtaa oo talaha gacanteeda ku jirtaa sababta idin sheegay waraa cidda furimaha joogtay xabada bilaab ka tamaanta anaga way waraa haddana maanta qurud qabsado oo aan oog qabsado oo aan ergaaba qabsado waraa doorasho dhacay maxay tahay muusena shadax sanaa waxa way hadii la kuuray extension helaya adigana adoon bad ahaanaysa xaggan ana kugu tirin xaggan habar walba kugu tirinaysa waraa ma dagaalabi kara waraa buurba fuushay garcigso buurba fuusheen kolka buurta fuusheen maxaad buurta ka soo hideen buur baanu fuulay waanu halganay doorashada khasab baan ku keenay fatadciga waraa anaga beeni wala haw dadka u sheegi jirnay sharci santay saaqbatiin runta idin sheegaya buur baad fuusheen buurti maxaad ka faa'iideen hal arrin baad ka faa'iideen oo Soomaaliyeed ku xasuustaa wiilkiisa diginaha ee barkhabatuun in adeerkii inaad madaxda kaga istaagtaan muuqaal faro ka dawataan inta uba ka faa'iideen wax kale oo ka faa'iideen ma jirto argabaanaale mid bay idin sheegay war argaba ku kala baxanaa turwi xalana waa shay ninkii awood laban argaba u haraya nabad baanu doonaynaa mar activity nabad baanu ka doonaa ka dhaha oo ka cala dadkan hadii qaad fulinimo argaba waxa way hadii la kuriyay ku gaada nin baa waxa laga hayaa islaantiisiiba xoolaha maraa iyagoo wada xaajoonay ay marba meel bay isu luluxisay moogta markaas uu na isku hayn iyo kala hayn midun ogolo garcadso war nabadii colaad wax u dhaxeeyo ma jirto nabaduna maanta cidda u baahan ee danta ugu jirto waa adiga wey sida muuqatana oo xaqiiqa annaga waxay idin sheegaynaa cerigabo dadka ku nool intooda hartiga xafada hartiga ku nool baan u talinayaa baad leedahay baan u dowladeynayaa baad leedahay haye ma suurtagelaysaa markaa inay nabad halkaa ka dhalato waa maya wey ka daaya garaadadaeeda ka daaya ismadeeda wicitaankan lafta u keenteen ee aad wacaysaan leen walaalayaal please fadlan waxa weeye nabad baan u baahannahay iyo hoos ka sii ma suurtagelayso dilkaa maanta dhacayna waa ka jawaabanaa nin hortii catow iyo calaacal lagu bartay ma yihi tolkay way ka jawaabayaan weliba waxay uga jawaabayaan sida uga dhaqsaha badan dhiigga wiilka darwiishka dhulka uma dhaco taasna waa taa argaabo hal bay leedahay halka xalay leedahay maxaa waaye waa in qolo walba daanteeda maamulato way noqon weyday Soomaa idinka iga yaqaan waxay noqon doonto idinka iga yaqaan waayo waan ogahay waxay dhaxli doonto waa in fooda la istaro weey waxaan rabaa reer SSC jamaahiirtana u diro diyaar garooba meeshaad lix ka joogtaan dagaal laabta ka ogaada waxaa naloo sheegay in baasha fanax oo araba oo ciidankay waxa la ka saaray muuse og meelaha soona cirgaabad bayna ku sugan yihiin dagaal bayna rabaan in qaadaan meel bay rabaan in weeraraan muuse waa inay idin sheegay 6 bay u dhacday waxaan in badan muuse ilaalinaynay oo aan la warbal u kaadi nimankaasi dhowr jeer bay idin catoodeene bal u kaadi waa iyagiiba ka soo hormaray iyagiiba soo isticmaalay marka inaan la gubno oo aan la gurino waxa way hadii la kuuro yahay waa shakal ah hala diyaar garoobo ninkaas ciidan wato waa la noo sheegay meelay rabaan inay galaan hala feejignaado yaa nina cid laga helay feejignaan ballaaran hala sameeyo mid kale waa idinka codsanayaa jamaahiirta reer SSC mid degmo ilaa tuulo ciidan la duubi karo yana jirin xogta sirta ciidanka hala ilaaliyo ciidan ba halka maray ciidan ba halka u baxay hala jooji stop hala jooji sirta ciidanka hala ilaaliyo dadka ciidamada sirtooda iyo muuqaalada laga duubayo hala joojiyo taasina waa arfays aan siinayo oo ah inaad u diyaar garoodaan insha Allah taala waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan leeyahay garxags nabadu maanta idinka u baahan anagu maanta uma baahanin anaga waliba dhulkayga baaba deeqeymaqeen ergaaba naga maqanba cidda nabadu u baahan inay nabada ku fara adeegto wallahi waa idinka weeyay haddaan nabada ilaalin weydaan oo afxumada aad ilaalin weydaan ogow wallahi billahi tullahi saacad ay ka qaadan mayso gabiga inta ergaabo joogta inaan qaarna maxaabis ka dhigo qaarna hadii la kuuray cid hoos maraan habar jeclana waa kuwa salay caayisay weey waa kuwa waxa ku diganaysa weey maanta iyada sajaanis bay haysataa waa arkay kuwa habar guro weey waa kulay ciidamada SSB baxay galaxsiga rabaanay xaawada ku shubaan hodhow dhahan daadar gaclay day to day
مرة مالين وي مالين تيدي وي أدينا مالين تاد صوم مرتين قولي هورا ولا حلي متقنا waxaanu soo diraynaa walaalayaalow waxaanu soo diraynaa raashinka briiska saliidda laga waay maayo ha moogta hiil isaaq baan soo diray iyagu intaa bay ku filayeen kursiga waa fadhiyaan midna way idin sheegayaan muuse six bay u dhacday meesha ergaamana waa ka qiiqi doontaa nabadini ma jirto ha laba qolob oo u daran tahay maanta oo ergaaba ku sugan qolo waa garxads doorasho doon ahayd oo dhamaatay god bay uga dhacday muuse waxa weey hadii la kuurayay dagaalkaasi waa ridayaana waa la qaadanay muuse waa kula qaadanay dagaalka waa kula qaadanay si toos saddex sano extension ugu dhuftaa ninkaan kala baxno oo magaalada Ceergaabaan ku kala baxno qolada labaad waa qolo horgalo ah oo hartiya oo Ceergaaba ku sugan oo lufluf ku haystay jabada argixisada sanam qoliyahaasna waxaan leeyahay god bay ka dhacday marka baashu kulaato oo baashu dhamacdo idinka la idinka bilaaway intaas waa inta waxaan arkay iyagoo le geeli dhaga badane ishada la dararsaday baa la soo celiyay waa been arrintaas waxba kama jiraan geelaasi ciidamada maanta loo qalay ilaa dhowr boqol halaad bay hayn sida loo xaqiijiyay ciidamada kuwa cayn iyo kuwa sool iyo kuwa hadii la kuuriyay sanaagba waa la gaarsiiyay intii kalena kayd ba ciidamada loo dhigay geelaasi wuxuu ku dhawaalaa 380 sano la sheegay ciidamada loo qalayaa taasna waa taaway dadkaasi waa arkay kuwa la geeray ba qayb aaka lagu soo celiyay maxaa aaka gawaarida barbogosyada ku soo dagaal tagtaba laga qabsaday marka intaas waa inta khayr baa idin rajeenaya insha Allah ta'ala muuqaalkan si shar gareeya anagu waxaanu ka shaqeynaa wadanta dadkayga weey simba waxaanu taaganahay danta dadkayga weey absolute wararka hadii nabad laga helo oo ay nabad baan doonina war xafadina maamusho war xafadina maamulana war taana ragacali weeyde waxay rag weeshi baa waa nabad baa leey Soomaa taas wadina laakiin walaahow ya hadal media laga sheego iyo host ka sii ma suurtoos isku haynta iyo kala haynta ilmaad realo mid uu helo idinku yimaado insha Allah ta'ala khayr baa idin rajeenaya